kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada xiisaha leh caawad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu door koron waxa kamid ah ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa salaadii ciid maanta ciidamada geesiyaasha beesha ciise kula tugtay furimaha hore ee dagaalka khudbada uu halkaasi ka jeediyay ugaaska beesha ciise halkee ayay daarneed maxay isugu jirtay khudbadiisa muuqaalkan ayaan kugu bayaanin doonaa iyadoo faahfaahinaya halkan ku daawan doonta qodobada kale ee xiisaha leh halkan caawa ku daawan doontaan hadii ay baraali laga helo waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro oo markan ku dhawaaqay dagaal haddaba yay tahay cid dagaalkan loogu dhawaaqay oo ay la dagaalayso maamulka Soomaaliland sababta ugu weyn oo ugu damacsan yahay Cabdiraxmaan Ciro dagaalkaas ayaan rabaa caawa inaan halkan kugu faahfaahiyo sidoo kale qodobada xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa lacag guddoonsiiyay ciidamada geesiyaasha beesha ciise oo ku sugan deegaanka Heemaal haddaba lacagtaasi halkee ayay ka timid ma deeq lacageed oo la soo gaarsiiyay ma ugaaska mise isaga ayaa jeebkiisa ciidamadaasi ugu gartay oo xaqul ciid ay ku dhiganayaan muuqaalkan ayaa sidoo kale kuugu faahfaahin doona qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahinaya saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan hadii ay baraali laga helo anigu soo waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media hadii ay taamar kugu horeysay fadlan rukumo oo subscribe leh muuqaalkan aad daawanaysidna like garay share garay saaxiibadaada la wadaag mahadsanid hambali ayaan idin leeyahay maalinta koowaad ee Ciidul Fadriga waan idin kugu hambalyeynaya dhammaan saaxiibada barteeda YouTube-ka ku xiran soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno sida qodobada hordhacaad muuqaalkan ku soo daawateen iyagoo faahfaahinayeen markan u gudagalayna ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa deeq lacageed ku wareejiyay ciidamada beesha ciise ku sugan Heemaal haddaba lacagahan ayaana markan la siiyay ciidamada beesha ciise dhowrkii maalmood lacaga dibadda uga timaada ayay ciidamadan helayeen kuwaas oo ay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada beelaha Samaroon iyo waa maleeshiyada beelaha Gudbursi iyo beesha Samaroon oo isku dhinaca dhawaan ayay ahayd markii qurbo joogta beesha ciise ku sugan ay lacag isku soo dareen iyagoona ay ku wareejiyeen geesiyaasha beesha ciise ee deegaankooda iyo waliba sidoo kale dadkooda difaacanaya balse markana ciidamadan ayaa lagu wareejiyay lacaga oo markaasi ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa uu ku wareejiyay ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa lacag ku wareejiyay ciidamada beesha ciise oo ku sugan deegaanka Heemaal si loo xoojiyo difaaca iyo waliba sidoo kale abaabulka ciidanimo maadaama cid kasto ay u baahan tahay in la dhiirigeliyo balse geesiyaasha beesha ciise ayaa markan qaybtooda ay noqotay in dhiirigelintooda ay sii socoto intii lagu gudiray bisha barakeysan laba lacaga ayay soo gaartay waa lacagtii saddexaad oo la siinayo ciidamada beesha markaasi ciise walow dhigooda ee beelaha Samaroon aan la arkin iyagoo markaasi dhalinyaradooda xitaa lagu dhiirigelinayo siinta lacagaha iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan inay hortagaan oo ay ku dhiiriyaan shaqada ay markaasi dadkooda iyo deegaankooda u hay taas ayaana ku cadeynayso in mar walba laga itaalroonya maleeshiyada beesha Samaroon warar dheeraada ayaana markaasi sheegayaan in lacagtaasi ay si gaar ah ugu markaasi ay ugu socoto daryeelka ciidamada shidaalka gaadiidka iyo waliba sidoo kale dagaalka iyo sahayda iyo abaabulka gurmudka ah ee ka imaanayo deegaanada kale ee beesha ay markaasi degan yihiin dhalinyaro badan ayaa la rajeynayaa in dhawaan loo qoro ciidamo tiro badan oo ay leedahay beesha Samaroon waa beesha ciise iyagoona halkaasi qaybta lixaad ay ka qaadan doonaan dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka beesha Samaroon balse ciidamadan iyo waliba sidoo kale lacagahan ayaana naqanaya mid si weyn loogu dhiirigelinayo ciidamada beesha ciise dhawaan ayay ahayd markii lacago 10,000 kor u dhaafayso la guddoonsiiyay iyagoona ciidamada iyo waliba sidoo kale dadkoodii lagu ciidsiiyay oo ay maanta ciidda maalintii koowaad ahayd ay si weyn ay markaasi ay ugu wada ciideen balse xaaladdu ayaa hadda ah mid degan inkastoo ay dhici karto maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay dhamaatay markan waxaa dhici karto in fooda la isdaro hadii ay sidan ku sii socdaan maleeshiyada beesha Samaroon ay noqon doonto in mar kale jilbaha loo aaso xaaladda gobolka Awdal iyo Salil markan ayay ka sii daraysaa maadaama dhaqdhaqaaqyo xooggan ee dhinacyadan kala duwan ay sameynayaan lama ogo ilaa halka ay gaarsinaan kara dagaalkan ama uu ku markaasi gaari karo haddana mar walba waxa la filayaa in dagaalkan uu noqdo mid ka fool
xilli la dareemayo in dhaqdhaqaaqyo ay halkaasi jiraan dhanka kalena haddii aan fiiriyona madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro ayaa markan ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah maleeshiyada beesha Samaroon oo loo xaglinayay maleeshiyadkan in ay garab siinayaan maamulka Somaliland oo ogaaday halka ay baasha ku qoran tahay ayuu markan bilaaway ama dagaal ka dhan ah beelaha Samaroon in la soo afjaro ayuuna markan ku dhawaaqay waana guul kale oo ay beesha Ciise u soo hooyanaysa madaxweynaha maamulka Somaliland ayaana markaasi nasiicad u bixiyay amar dagaal isagoo markaasi faray ciidamada in ay foojigan buuxda ay galaan si markaasi ay u difaacaan deegaanadooda iyo waliba sidoo kale beesha markaasi Samaroon ama beelaha Gudubursi oo dhowrkii maalmood ay markaasi xatooyinimo iyo waliba sidoo kale ay wadaan daandaansi ku aadan in ay Somaliland ay baraha bulshada ay ku soo aflagaadiyeen iyadoona taasi ay tahay in markaasi gacan bir ah lagu qabto madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa ciidankiisa markaasi saraakiisha faray in heegan buuxda ciidamada la geliyo kadibna maleeshiyadan soo ruusanaysa ee beelaha Gudubursi iyo beesha Samaroonba in gabi ahaanba la soo afjaro walow aysan markaasi ciidamadu marka ay sheegeen in ay dardargelin doonaan howlgallada iyo waliba sidoo kale amarada ugu imaanaya maamulkooda Somaliland balse tani waxay awaaqib xumo ay markaasi ay kala kulmi kartaa beesha Samaroon maadaama maamulka Somaliland ay faraha la sii galeen iyagoo markaasi taag u waayay beesha Ciise ayay markan dhanka Somaliland ku jeesteen iyagoona waxa aysan Somaliland sameeyeen baraha bulshada maalin walba ay markaasi ay u soo marinayaan xaalka waa uu sii daray oo allow sahal ayuu noqday beeshii Samaroon waxa ay naqatay dherigii labada dhinac ka gubtay iyadoona ay hadda dagaal bilow ay markaasi naqanayso bishii barakeysneed ee Ramadaan way soo idlaatay beelahan halkaasi wada degaan maalmihii u dambeeyay hub aruursiga ugu dambeeyay ayay wadaan iyadoona laba maalin kadib ama maalmo kadib waxaa dhici kara dagaal xoogan iyadoona beesha Ciise ay si weyn isku soo hubaysay halka beelaha Gudubursi iyaguna laftigooda ay helayaan hub teelteela taas oo ay ku muujinayso in waqti kasto ay fooda la dari karo xaaladda gobolka Awdal aad ay u kacsan tahay oo ah mid kacsanaan ah ayaa laga dareemaya dadka shacbiga waa hore ay isaga barakaceen iyagoona xaaladaasi u adkeysan kari waay dhanka kalena qodobkeena ugu dambeeya haddii aan fiiriyo ugaaska beesha Ciise ayaana maanta si toos ah salaadii ciideed wuxuu ula tugtay ciidamada geesiyaasha beesha Ciise oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka maadaama bil barakeysneed ay soo dhamaatay dhalinyaradan shaqo wanaagsan ay qabteen ugaaska beesha Ciise waxa uu gartay in dhiirigelin uu ugu tago dhalinyaradan si ay u noqdaan kuwa biri markaasi difaaca dalkooda iyo deegaanadooda maamulka Guwan State oo ayaantan ama maalmaha soo socdana warweyn oo idinka haya oo muuqaaladeeda dambe ayaad ku daawan doontaan balse ugaaska beesha Ciise ayaana maanta si toos ah furimaha hore dagaalka kula ciiday ciidamada isagoona halkaasi markaasi ka jeediyay hadal dhiirigelin ah kuna markaasi booriyay ciidanka in ay adkeeyaan difaaca isla markaasna ay muujiyaan isku duubni taas oo ay tahay in geesiyaasha beesha Ciise loogu bartay in ay yihiin dad isku xiran oo ay deegaankooda iyo dadkooda difaacanaya sidoo kale waxaa la soo warinayaa in dhalinyaro badan ay ku biirayaan ciidamada halka qurbo joogtana ay beesha Ciisena ay markan bilaaweenba ururinta lacagaha iyo taageeridda hagar la'aaneed oo ay markaasi loo diyaarinayo loona daadejinayo dhalinyarada cusub ee dhiiga cusub ee ku soo biiraya ciidamada kuwa beesha Ciise kuwaas oo ay doonayaan in deegaankooda iyo waliba sidoo kale dadkooda ay ka difaacdaan maleeshiyada is aruursanaysa ee beelaha Gudubursi deegaano ku dhow Heemaal waxaa markaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo ciidan markaasi oo xoog leh iyadoona la arkayay gaadiid dagaal ciidamo si markaasi isu aruursanaya taas oo sare u qaadaysa walaaca ugu markaasi laga qabo isku dhaca mar kale beelaha Gudubursi iyo waliba sidoo kale beesha Ciise oo markaasi soo horjeeda xaaladda gobolka Awdal iyo Salil ayaa sii naqanaysa mid faraha ka sii baxda haddii ay sidan wax ku sii socdaan xaaladda guud aad ay u kacsan tahay waxaana jirto cabsi ah in dagaal culus uu ka qarxo saacadaha ama markaasi maalmaha soo aadanba haddii aan xal degdeg ah laga gaarin xiisadda taagan ee gobolka Awdal iyo Salil ugaaska beesha Ciise khudbadiisa ayaana u dhigneed in hadallo ay isugu jireen dhiirigelin iyo waliba sidoo kale
ciidamada markaasi lagu guwaawinayo iyo farxadda maalinta ciidda uu la qaadanayo ugaaska beesha ciise daawade qodobadaas ayay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa ayaan halkan idinkugu talgalay halkan haddii aad nala soo gaartay daawade waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaya inaad kanalkan soo markaasi subscribe garaysid muuqaalkan la garaysiin share garay oo saaxiibadaada la wadaag waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin